waxa uu ahaa mid ka mid ah culimada masaajidada maalin maalmaha ka mid ah oo Jimco ah mid akhriyaya khudbada Jimcada isaga oo khudbadii wada kana hadlaya dulmiga iyo dhibaatada uu ku keeno dadka geysta ayaa ishiisu waxay ku dhacday in curyaana oo kursi ku fadhiya ninkaasi oo ilmeynaya kana murugaysan warka uu sheekhu sheegayo. Markii uu sheekhi ka faaruqay khudbadii uu waday waxa uu arkay ninkii oo dhankiisa soo aadaya una soo dhowaanaya kuna leh, sheekhow, ilaahay waxaan kaaga dhaarinayaa inaad i raacdid oo gurigayga aad ila rafiiqdo maanta. Markaad guriga ii raacdo waxaan kaaga warramayaa arrin weyn muhiimna ii ah. Wadaadkii waxa uu aqbalay dalabkii ninkii waxaana uu u raacay xagga gurigiisii. Markay guriga u dhowaayeen ayuu ninkii wuxuu furay qol guriga ku ag yaalla. Qolka uu furayna waxa ku jiray gaadhi cusub, gaadhigaasoo weliba dahaadhan. Waxaana uu markaa u guda galay inuu u sharaxo arrinta haysata iyo waxa uu doonayo inuu uga warramo. Waxa uu yidhi, sheekhow, maalin maalmaha ka mid ah oo aan sidaa u fogeyn waxa aan joojiyay gaadhi ay wataan nin iyo naagtiisii dhanka cisbitaalkana u socda. Naagtu waxay ahayd xaamilo, ninkuna naagta ayuu waday. Waxa aan ku qabtay qori waana joojiye. Waxaan ku amray inay gaadhiga ka soo degaan haddii kale aan dilayo. Sidaas daraaddeed waxa ay yeeleen warkaygii. Waa ay degeen iyagoo Ilaahay kaalmo weydiisanaya, anigana iga baqaya, ooyayana. Markii ay gaadhigii ka degeen ee aan gaadhigii gudaha u galay oo aan kaxaystay ayay gabadhii waxay war dheer ku tidhi, ilaahay waxaanu kaaga barinay inaad ku qallashid adduunka iyo aakhiraba. Arrintaas waan ka yar murugooday oo waan ka yar baqay, laakiin uma aanan joojin. Aniga oo xasuusan isla markaana dareemaya xadiiskii nebiga ee ahaa ka baqa habaarka qofka la dhibay ee la dulmiyey, waayo habaarkiisa iyo Ilaahay wax kala teedayahay ma jiraane. Muddo daqiiqad kadib waxaan go'aankayga xumaa ku qaatay inaan gaadhigii soo qaato. Imana aysan saameynin arrintaas oo dhani. Gaadhigiina qolkan ayaan keenay. Muddo yar kadib dhabarka ayaa xanuunaya, waxaad mooddaa in midi laygala dhacayo. Ayaama yar kadib waaba anigoo qalal igu dhacay, waana curyaamay. Aniguna markaasaan aqoonsaday habaarkii gabadhii in Ilaahay aqbalay. Sidaas daraaddeed, sheekhow, anigu adduunkii waa aan khasaaray, doonina maayo inaan aakhiro khasaaro. Ila tali, ogowna waxa aan doonayaa inaan celiyo wixii aan soo dulmiyey si aanan aakhiro u khasaarin, Ilaahayna aanan ugula tegin dembi weyn. Wadaadkii waa uu ku farxay arrintii, waxaana uu yidhi, Ilaahay ayaa ku mahadsan inaad toobad keentay maanta. Wadaadkii waxa uu u wariyey ninkii isla markiiba u sheegay in gabadhii ay nooshahay, uuna garanayo gaadhigan ciddii lahayd. Gabadhii uu gaadhiga ka boobayna jaraa'idka lagu soo qoray, wiilna ay dhashay, ayna nabad qabto, isna uu hawshaas uu maamulayo oo ka dhaxaynayo labadooda. Sidii ay ballantu ahayd, wadaadkii waxa uu la hadlay dadkii, waxaana uu sheegay gaadhigoodii inuu hayo, ayna soo cafiyaan ninkii toobad keenay. Arrintiina waa ay dhacday, waana la cafiyey, waana loo duceeyey ninkii. Muddo yar kadib waaba ninkii oo masaajidka aadaya, aayarna soconaya. Ninkii waxa uu guda galay dadka inuu xadiiskan u sheego. Man kaanat cindahu madlamatun liakhiihi min cirdih aw min shayin falyataxallal minhu alyawma qabla an laa yakuuna diinaaran walaa dirham. In kaana lahu camalun saalixun ukhida minhu biqadri madlamatih, wain lam yakun lahu xasanaat ukhida min sayi'aati saaxibihi faxumila calayh. oo macnaheedu yahay qofkii maanta wax haya oo walaalkiis ka haya ha u celiyo hana ka xalaashado inta aanay waxaasi ku adkaanin. berrito haddii qofkan ajarkiisa aakhiro la tago ajarkiisaa la siinayaa, haddii ajar laga waayana shartiisaa korka laga saarayaa.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah mahadsanid.